nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Farxiya Kushiin. Asxaabta qaaliga ah mar kale iyo muuqaal cusub. Galabta waxaan inoo wadaa casiriyada faamilka rooti bila foorna ah iyo armaajada caruurta isku waalata dharkooda raba inaan hagaajiyo. Maasha Allah tabaarakallah, ka faa'iideysi wacan. Waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah muuqaalka la dhamaad daawo si aad uga faa'iidid. marka hore waxaan soo qaatay koob caano qandac ah, waxaan ku shubay baaquliga, kadib waxaan ku daray hal xabo ukun ah, kadib waxaan ku daray ilaa 4 qaado oo sokor ah ama 5 qaado sokor ah ku darsan kartaa. Sokorta adaa ku badan kartaa, adaa ku yareyn kartaa rootiga. kadib waxaan ku daray hal qaado oo leebat ah ama qamiir ama fixiso qobas u yaqaano. intaas kadib waxaan ku darayaa wax yar oo subag ah, qaadadaas aan ku cabirayaa. subaga isticmaalayana subaga blue band waay ama saliid yar ku darsan kartaa. wixii dhan markaa isku qastid kadib waxaan ku soo darayaa bur ilaa 3 koob oo bur ah ayaan ku soo darayaa iyo wax yar oo cusbo ah. ugu horeyn haddii aad ku cusubtahay channelka waxaan ka codsanaa subscribe inaad taawatid kadibna gambaleelka taawo si muuqaal walba u soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah. haddii aad gambaleelka taawatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo. soo dhawaada, ka faa'iideysi wacan. rooti aad u jilicsan oo dabka caadiga aan ku sameynayno. burkan soo qasayaa waa inaad si fiican u qastid. waa u jeedaan jileec saas ayaa laga rabaa. intaas kadib bacaan soo qaadanayaa, bacdi afka saarayaa. markuu soo qamiiro ayaan ku soo laabanaynaa insha Allah. ugu yaraan 30 daqiiqo aad intii markaa uu kugu soo qamiiro inuu soo qamiiro la rabo kor u soo kaco si fiican. birtaan isku daboolka ayaan rabaa inaan ku sameeyo. birtaan isku daboolka alaabaha aan gada ayay ka mid tahay, waana qiimo macquul ah, waana originaalkii markaa xoqmayso. anaaba sanad iyo bar camal isticmaalaya, wakaas man isbedelin. intaas kadib wax yaraan dhigay, wuu soo qamiiray sida hadda idiin muuqato. rootiga sidiisa waxaa la rabaa in 2 mar uu soo qamiiro. marka hore markuu soo qamiiro waa hagaajinaysaa, waa duuduubaysaa, kadib ilaa dhigtid waaye uu mar labaad soo qamiiro. intaas kadib wax yar oo buraan ku dadaadinayaa, gacantan la galaa si fiican mar labaad u qasayaa. asxaabtiigu cusub qalbi furin iyo wali wanaad saafiya soo dhawaada channelka hore u gala, waxyaabo badan ayaa ka faa'iideysaan. muuqaalkana like u badaysi maxaan ku iraahdaa kun like aan u gaarno, waa mahadsantihiin. intaas kadib burkaan saa u soo goostay kadibna waan kuskuusayaa. haddii aad doontid qudaar hilib wax walba aad gudaha u gelin kartaa, laakiin saanaan rabaa inaan ku sameeyo. macnaha saanaan rabaa inaan u hagaajiyo. saanaan usoo kuskuusayaa. birtaabadan isku daboolka ah waxay wadataa cinjir yar oo gaduudan oo afka hore looga dhajinayo. gabdhaha badan way ku wareeraan. 2 xabo la imaadaa, mid waxaa loogu talagalay haddii midka kale lacal uu kaa dhumo inaad kan kale isticmaashid. kor iyo hoos lama geliyo, qaybta kore lagu dhajiyaa, xabadka kale meel aad iska dhiganaysaa, midka gaduudan oo afka uga dhagan. intaas kadib bacdaasaan ku daboolayaa. 20 daqiiqo ayaan dhigayaa si uu u soo qamiiro mar labaad. waxaa la rabaa inuu soo qamiiro asaga dhan inuu isku imaadaa la rabaa. ma rabo inaan ku soo daboolo, saan le u dhaafayaa. waa u jeedaan hadda waa uu soo qamiiray. marka hore waxaa sameynaysaa birtaabaa dabka saaraysaa ama birta canjeelada ayaa dabka saaranaysaa. markaad saartid birtii dabka ku shidaysaa kuleel markay noqoto. birtii oo rootiga ku soo diyaarsatay isku daboolka ayaa saa u saaranaysaa ama digsi. haddii tan aan haysanin caadi waaye digsi aad isticmaali kartaa. waxaan u dhaafayaa 20 daqiiqo kadib waa ku soo laabtay. 20 daqiiqo kadib waxaan rabaa inaan dhinac kale u gadiyo. waa u jeedaan maasha Allah tabaarakallah, asaga dhan wuu isku soo wada dhagay. saan markuu noqdo diyaar waaye. dhinac kale aan u gadinaa sidoo kale dabkan waa inaad u yaraysid. waxaan sugaynaa 20 ilaa 15 daqiiqo. markuu si fiican u bislaado ayaan ku soo laabanaynaa. qaybtan kore ayaan fiirinaynaa. waaw maasha Allah tabaarakallah, inaba caadi ma ahan. hadda waxaan sugaynaa ilaa 15 daqiiqo. dabka le u yaray, waa inaad dabka u yaraysid. rooti bila foorna caadi waaye, waa samaysan kartaa. waa wax iska fudud oo si fudud u samaysan kartid. birtaabadan dabka waxaad ugu hormarinaysid digsiga waxay tahay inaysan kaa gubanin. waa u jeedaan kalar qurux badan ayuu yeeshay. maasha Allah tabaarakallah, dhadhankiisana lagama sheekeyn karo. yaa jileeciisana indhihiina idin macalin ah. muuqaalka xaqiisa si oo like u badiya, waa mahadsantihiin. waa u jeedaan markaas u kala jaray, inaba caadi maahan. maasha Allah maasha Allah,
qofkii dhamiil ka sheekeen karo dhaxda le ka jaraysaa caruurta waxa u marin kartaa malabka maxaan ku iraahdaa subaga rootiga la marsado yaa wax uu diidayo malahan dhinaca kale qolka caruurtan imaaday haddii aad ku wareertay armaajadii oo dharkii mar walba saa isugu dhexwaalan yihiin xal ayaa loo helay ma fahanteen yaa dharka waa ujeedaan inkastoo armaajooyinka ay tiro badan yihiin dharka ay ka buuxaan waxaan rabaa inaan midaan la idin tusiyo dhammaanna saan ayaan usoo hagaajin doonaa dharkii oo dhan markaan soo wada qaatay waxaa u baahan tahay caagadahan waxaa wax iska lacag yar waaye wax saa usii badan ma ahan caagadahan soo qaadanaysaa kadibna midba maxaan ku iraahdaa dharkii ayaa ku guraysaa sarwaaladii midaan ka dhigayaa mid diracyadii aan ka dhigayaa mid maxaan ku iraahdaa kastuumooyinka ku guraysaa caruurta waxyaabahaas oo dhan macnaha si aysan caruurta ugu wareerin haddii armaajadii dharka leel isaga guro waxaa waa ayaga ku wareeraya soo maahan markay soo qaadanaa wixii dhan intay isku qasaan wixii dhan macnaha dharka dhan intay isku qasaan waxaan ku dhahay maalin walba dhar laalaawo ma ku jiraysaa waa maya ka waxaan ku dhahay isbuuci hal mar leela laabaysaa ma fahantay sarwaaladii markaasaa usoo lalaabo hal caagan ku gurayaa canug walba iyo dharkiisa macnaha caaga uu guraysaa sarwaaladii ayaan halkan kusoo xareynayaa sarwaalkii canuga uu markaas idin saas la usoo qaadanaya ma fahanti wixii u lalaaban maasha Allah raaraadi maba ahanba caagadaha suuqa meesha caagadaha lagu iibiyaa kasoo gadan kartaa ayagoo tiro badan waxay ku fiican yihiin waa is dul saari kartaa yaa wax guriga ka buuxinaa ma ahan muhiimaddu waxay tahay le dharkan le in xal loo helo oo aad ka nasatid subax walba aadan dhihin macnaha dharkiisaan yaa yeelay iyo adii caruurtii aadan isugu mashquulin yaa howl fududeen ayagana waqtiga jaanis haan waxaa leedahay kaalin ila hagaajiya sarwaaladii fanaanadii maxaan ku iraahdaa dharkii meeshuu yaalo si toos looga soo qaadanaya waxa la isku qasayo la isku walaaqayo la kala tuurayo ma jirto maasha Allah tabaarakallah kan waxaa fanaanadihii kuwan waxaa waay diracyadii yaa waxaan ku xareynayaa caagadahan sida u soo saaraya oo macnaha ku soo hagaajinaya isbuuci hal mar le haddii dharka saa u lalaabtid kugu filan meeshiis wax walba aad la laabi laheedoo stress isku ridi laheedoo dharkii asaan yeelay iyo armaajadan ayaga hor imaaday iyo yaa caruurta dhib badan ay mashquulka maxaa ku geliyay caagadahan soo gado dharkii saan ugu xareyso xijaabadii yaroo caruurta sarwaaladii fanaanadihii diracyadii yaa dharka jiifka wixii dhan saan le u xareysanaysaa canug walbii armaajadiisa 4 caag ku filan kadib waxaa sameeyay dharka oo maxaan ku iraahdaa cabaayadaha koraan suray kuwan kalena waa dul saaraysaa armaajada dhan ba ayada maxaan ku iraahdaa nafaas noqotay maasha Allah tabaarakallah ujeeda waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen dhamaantiin waxaa idin ku codsanaa muuqaalka like saara subscribe dhaha intaana subscribe dhihin waad ku mahadsantiin daawashadiin iyo waliba dhiirigelintiina saliida FK waa saliid timaha bixisa jajabkan way ka ilaalisaa agoolka way ka saartaa timahaaga haddii qaleel ay yihiin oo saliidaha aad ku kari weysay qaleelka way ka saaraysaa saliid zeytuun ayaa ku jiri jirtay saliido badan oo xawaa qiimo leh la isku dardaray maasha Allah iyo qudaar hadda saliid zeytuun kuma jirto gabdhihi la xasaasiyaan ku qabna waa laga dhaafay sooyaaca jimle iyo tafaariiq buu helaysaan maasha Allah